xafladan kooban oo ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland ee magaalada Garowe waxay shaqaalaha wasaaraddu ugu dabaaldegayeen sanad guuradii 22aad ee ka soo wareegtay maanta oo kala markii la aasaasay dawladda Puntland 1998 wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda agaasima waaxyada kala duwan ee wasaaradda iyo mas'uuliyiin kale ayaana munaasabadan goobjoog ahaa فاطمة محمد عبدي oo kamid ah shaqaalaha wasaaradda ee xafladda soo qaban qaabisay ayaa hambalyo u dirtay dhammaan shacabka reer Puntland iyo guud ahaan shaqaalaha wasaaradda waxaan leenahay hambalyo sanad guuradii 22 guuradii Puntland waxa soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan isku xilqaamay gabdhaha wasaaradda oo rabay in wasiirka iyo agaasimaha iyo kala qayb galaan dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxaan leenahay wasiir soo dhawow xafladan inoo fur حلنا همبليو دمان شعب وينه رير بوتلان. وزيرك وزارة arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyiinta dawladda Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa isaguna dhankiisa u mahad celiyay shaqaalaha wasaaradda waxa uu sidoo kale hambalyo u diray shacabka reer Puntland. aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa gabdhaha wasaaradda oo runtii ka soo shaqeeyay munaasabadan kooban ee lagu xusayo 1 August oo ah dhalashadii Puntland. aad iyo aad baan u mahadsantihiin waa runtii waa munaasabad aad baan ugu faraxsanahay in shaqaalaha wasaaradda khaasatan gabdhuhu ay sameeyaan munaasabadaha noocan oo kala shaqaalaha isugu yeeraan maalmaha farxadda la wada wadaago aad iyo aad baan runtii kaga mahad celinaynaa waa arin anaga laftigeena ugu dhiirigelinaysa inaan maalinteeda keeg soo sameeyno hadii la haydmo Allah idin sharfo waana ku faraxsanahay insha Allah waa dareemayaa waayidoo shaqaalihi wasaaraddu fasaxyada reer bay kula maqnaayeen laakiin gabdha ahaan in inta wasaaradda timaadaan aad munaasabadan sameeysan runtii waa ka mahad celinaynaa aad bayna farxad u tahay iyadoo waliba aan safar ahaa maanta iyo ahayd xilli hadda saacadan ka horeysa inaan baxo haddana inaan kala soo qayb galo waa ku faraxsanahay aad baan u jeclaa doorshaha marka la sheegay in doorshi jiro baan dib u soo laabtaano safar si ah marka waa maadsantii soo dhawaadaan ilaahay farxad wanaagsan جعفر معلن ورباهنت الدولة Garowe